waxaa jira fariimo beena oo dadka aada loogu fidiyo. waxaan rabaa inaan ka hadlo laba nooc oo mid ay laba tahay. nooca koowaad aan raba inaan ka hadlo waa fariimo badan oo qoraal idinku soo gaaraya oo laleeyahay waxa haddaad akhrida waxaasaad heli, aadkuus haddaad akhrida waxaasaad heli, qurwalle inta haddaad akhrida waxaasaad heli, dikri haddaad akhrida waxaasaad heli, muddo intaa le gudaheed baad waxaad ku arki, haddaad samayn weydo fariintan fidi, haddaad fidin weyda dhibkaasaa kugu dhici, oo ballanqaadi oo sidaasoo badan oo beena. arrimahaasi shaki badan waxaa laga qabaa inay ka dambeeyaan dad aan muslim ahayn. nuxurka iyo ujeedaduna diinta dadka in laga shaki geliyo ay tahay. laba arrimoodba marka waa muhim inaad ku baraarugto. marka koowaad, waxaan la sheegaya waad heli oo kugu dhici laleeyahay waxba kama jiro. aayadna ma sheegin, xadiid nabi oo suganna ma sheegin. waa been ay dadku sheegeen, waa been la alifay oon sal iyo raadtoona lahayn. saa darteed ballanqaadyadani diinta ka mid maaha. sax aad kursi in la aqriyo fadli bay leeyahay tusaale ahaan, laakiin haddaad akhri weydo waxaasaa kugu dhici iyo haddaad akhrinta akhrida muddo intaa la eg baad wax ku helido been wey. qodobka labaad ee ku baraarugta ay tahay waa xumaanta ka dambaysa. haddii maanta ballanqaadka aad rumayso ood arki weydo, mid labaad aad arki weydo, mid saddexaad arki weydo, mid shanaad arki weydo, mid tobnaad arki weydo, marka dambe waxaa iman diinta waxaanu ballanqaadaysee wada beentaa maxay tahay. diinta inaad ka shakida wey waxaa labaad imanaya. waana yoolka laga shakisan yahay hay-ada iyo shakhsiyaad iyo dad badanoo waxaa ka shaqaynaya inay hiigsanayaan. haddaba si khaldan yaan lagu raran. fariinta labaad aan raba inaan baraarujiyo waxaa weeye, maalmahan qof codkiisu aada isugu egyahay, isshabaho ba wuxuu soo diraa fariimo xambaarsan axaadiid nabi sal slam laakiin beena. aan laba fariimood ka soo qaato. waxaa laga yaabaa inaad ila aragteen aada iyadoo la isugu dirayo fariin odhanaysaa nabi maxamed baa sal slam 4 jirkay ku jiradaan, 4 jirkay dumiyaan, 4 risiqay reebaan, 4 risiqay furaan, 4 wejigay nuuriyaan, 4 wejigay nuurkas ka qaadaan. taas waa been. nabi maxamed ma dhihin sal slam. waa dardaaranno dhakhaatiir bixiyeen. ibnulqayimna zaad almacaadka akhirkiisa ku sheegay. qaarkoodna niman dhakhaatiir oo griigii hore jalin yos iyo rag lamida bixiyoon muslim ba ahayn. taas nabigaa yidhi waa been, waxba kama jiro. isla fariintaa waxaa ku duuban in nabigu calayh isalaatu wasalaam uu yidhi zaytuunku saliidda zaytuunku 7 cudur bay dawa ka tahay. waa been. nabigu ma dhihin sal ly slam. waxaa ka mid ah aadaanka ha la aamuso waxay aan la akhriin. nabi maxamed wuxuu yidhi haddaad aadaankoo socda wax akhrido shahaadada sakaraadka markuu qabto tawxiidka haleeli maysid. iyana waa been, waxba kama jiro. nabi maxamed baa hadli jiray, saxaabadaa hadli jiray oo sheekaysan jiray aadaankoo socda, sida muwata maalik laga wariyey. cumar markuu khudbaynayo fuulo mimbarka salaada la joojin jiray, inta la aadaamayana waa la sheekaysan jiray. saasay saxaabadu ahaan jiray. marka iyana waa been, nabigu ma dhihin. waxaa ka mid ahoo fariinta uu xambaarsan yahay rumaanka iniintiisa iyo midhihiisa mid kastaba biyaha ku jira jannay ka yimaadeen ama biyo jannaa ku jira. waa been. nabi maxamed ma dhihin sal slam. fariintaa dhan 2 eray baa runka ah. nabigu wuxuu yidhi balliquu canii walow aaya, iyo nabigu wuxuu yidhi xabatu sawdaa shifaaun min kulli daa. inta kale waa been. nabigu ma dhihin sal slam. fariinta labaad aan tusaalaha kusoo qaadanaya kale waxaa weeye, codkaa shabaha ninkaana u eg yaa wuxuu werinayaa fariin ku bilaabanaysa wallaahi wa billaahi wa tallaahi. haddaad dhegaysata wuu ku saamaynayaa, qalbigaa waxuu ka bedelayaa. duruusun fi lxub. intaa dhaarta ah muxuu ku dhaartay? been buu soo wadaa. wuxuu leeyahay nabiga iyo cumar iyo abubakar iyo abudar baa meel isugu yimid. nabigu abubakar buu weydiiyeyoo maxaad jeceshahay buui. adduunyada 3 baan u jeclahay buui. cumar buu weydiiyeyoo 3 baan u jeclahay buui. abudar buu weydiiyeyoo 3 baan u jeclahayoo jire iyo cudur iyaa ka mida. kadib nabigaa la weydiiyo adduunyada 3 baan u jeclahayoo atiibu waannisaau wasalaatu buu yiri buu leeyahay. intan dambe oo weli wax khaldani ku jiraa ka jirta. tan nabiga calayh salaam way jirtaa. xubiba ilaya min dunyaakum atiibu waannisaa wajucilat quratu cayni fi salaa. adduunyadiina riwaayaadka qaarkood odhanaya 3 waa been. riwaayada 3 ma jirto, waayo salaadu adduunka ka mid maahaba. atiibu waannisaa nabigu waa yidhi. sheekadan kale ee ku lamaani waa been. meel kutubu sunna ay kaga qoran tahayna ma jiro. inay sidaas tahayna culammadu waa sheegeen.
nin la yidhahda qasطalaani bawaahibu laduniya ku sheegay cajruurina fii kashfi اlkhafaa markuu sheegay meel lagu garanayo inaynay jirin bay sheegeen marka sheekadaa beenta buu dhaar uusan ilaahay ugu baari samaynin buu ka horraysiinayaa codka ninkan iyo ninkaa waa isu egyihiin dee ciddii garanaysa farrinteeda ha gaadhiso muslimka beentana dhexwada ka daa ha la yidhahdo nabigan laga been sheegaayo been la mid ma aha khayr baan jeclahayna qiil uma aha in nabiga laga been sheego dadka fariimaha beenta sheegayana intaad waxaan khayr baan jecel lahay tiraahdaan ha dambaabina oo beenta axaadiida haddaad 100 qof u qorto u dirto wada fowaar garaysaan oo sii dir wada dhalaan mid walba wuxuu ku leeyahay akharka agtaada yanan fadhiin qofka weliba waxaan u sii badinayaa codkiisa ii sii adkaysiinaya xataa carabi ma kasi ma garan yaqaan carabi soo loo wada qofkan ma yaqaan tan dambe saddexda u dhaaranayana Abu Dhar buu magaciisa kale laayay tan horana sadaqa jaariyu garan laayay sadaqatu jaar weeyay jaar waa dariste jaariya ma sadaqa soconaysa ma حتى جاري جار بكرة كعن لايه أبو ذر بقعد كعن لايه حينتم بنتن أحاديثا مالو كسو قرا الاستعداد ليوم المعاد كي من حجر لو تيرني يا بنتها يا ثلاثيات كي رباعيات كي خماسيات كي سداسيات كي عشاريات كبنتها يكبوا حين طالما ملاينا يا مديوق ما نقننه إنه قير كسو طلطله وحن ربا فرين تيلو خير كفيدية لكن اسكهو صدا دميرة بنت الورد عن صدا هنقننا مكرفونا بنت وأديجها هنقننا وقاعد النبي والله قب عن شيء وأدم بوين نقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد بين لا يغشى يلا من مع بين قف كلا لا يغشى فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إلهي الله يجابه فرنت إذا قفك صوت وعدي قرن سيادتك هلا جارسيو بنت هلا سكيل عليه خير له وانا هلا في ديو وما سنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى